السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada habeen cusub iyo wanasbada kram isbuuci hore waxaan ka hadalnay caruurta inaan laga warqabo oo la ogaado waxay ku sugan yihiin so maanta waxaa raba si gaar ahaaneed inaan uga hadlo qiimaha aabaha caruurta waxaa waaye markaan yar Soomaaliya la joogay horta Soomaaliya dhaqankeeda wuxuu iska ahaa aabaha waa ninkii shaqaynayay oo guriga lacagta soo gelinayay hooyadan waajibkeeda wuxuu ahaa in ilmaha takeer garaysa ee koriso ee cuntada kariso guriga nadiifiso badanaana wax dhibaato oo dadka kasoo gaari jirin ma lahayn yacni wax oo ma jirin because dhaqankiyaa saas ahaay laakiin sababta ugu weyn oo waxaa aabaha maqnaanshihiisa badan oo dhibaato guriga usoo gaarsii waaya waxaa ka mid ah inay dadka familkooda iyo ehelkooda ku dhex noolaayeen so badanaa caruurta waxay ku noolaayeen guryaha oo adeeradooday arkayeen abtiyaalkooday arkayaan awowaa jooga guriga so dad badan oo waxaa jireen roolka oo aabaha buuxinayeen even though uu aabaha maqan yahay markuu dagaalka dhacay ee dadkii wada qaxeen oo wadamadan westiga la yimid ama just had anywhere just wadankaaga waa kasoo tagtay ehelkii iyo dadkii badnaayeen aa ku dhex jirtay oo supportiga ku suubinayeen oo booska aabaha buuxinayeen waa laga soo tagay waxaa la yimid meelo wadamo kale oo hooyadii iyo xaruurtii isku soo hareen marka aabihii uu maqan yahay waxaa dhici karta horta sabab wax reason fiican inuu maqan yahay aabihii dad badan oo waxaa jireen dad ku kaliftay inay wadankan kasoo shaqeeyaan because wadankii ay joogeen shaqo ma lahayn laakiin dad oo waxana waa jireen adii sabab kasta uu maqnaada aabaha uu maqnaay at the end of the day waxa waaye conclusionki inuu guriga aabaha ka maqnaay guriga aabaha uu ka maqan yahay waxaana ma laha qof oo booskiisa buuxiso oo adeer ma joogo meesha abti ma joogo qofkii oo tusi laheyd wiilisha raganimada waxay tahay ma laha so boos meeshaaseyta waxaa kasoo baxay gap waxaa dhahan ama faraaq oo qof buuxisana waa la waayey so aabaha aad iyo aad u important u yahay researchiga actually culimada oo sayniska waxay sheegayaan dad ilmaha oo aabe kusoo koraan oo aabahooda koriyo oo cilaaqa la leeyahay oo aabanimada horta waxa ma aha waa soo shaqeey lacagan kuu keena ma aha iskoolan kuu dira dharka aa gashatid anaa kusoo gaday so waajibkayga waa ka baxay taas leh ma aha aabanimadan waxa ma aha figure ma aha yani qofka inaa okay aabaan ahay waan fadhiya laakiin ilmihii mala sheekaystay ilmihii maka warqabi waxaas dhan hooyadii aan u dhaafa camal taas aabanimada ma aha aabanimada waxa waaye inay qofka inuu xiriir la lahaada aabaha cunugiisa inay wada sheekaystaan inay wada hadlaan inuu aabaha og yahay inay isku sir qarsadaan taasaa aabanimada ah ilmaha marka si oo cilaaqadaas loo dhisa ee u subsanta laakiin ay u adkaato waxa waaye waxay ka bilaabataa cunuga markuu yaryahay inuu cunuga iyo aabaha isla ciyaaraan inay kaftamaan inay legdamaan inay wax isla suubiyaan inuu aabaha cunuga kalsoonidiisa oo dhiso oo u sheekeeyo oo taariikhdii hore ooga sheekeeyo si uu cunuga waxa base u lahaado so waxaa ka hadlaya culimada oo sayniska waxay dhahaan cunuga oo waalid aabihiis kusoo agkoray iyo cunug kusoo agkorin way kala maskax fiican yihiin cunuga aabihiis kusoo agkoray maskaxdiisa ayaway develop dhismaysaa ee dhamaystirmaysaa xataa waxaa la dhahaa hadalka markay hadlaayaan cunuga oo aabihiis kusoo agkoray wuu ka hadal fudud yahay wuuna ka erayo uu ka hadal fiican yahay cunuga oo aaba la-aanta soo koray so hadda sayniska wuxuu caddeynaa inuu aabaha important yahay mid kaloo aabaha important u yahay waxaa waaye markii oo masalan gabadha kasoo qabo gabadha markii ay soo korto ee damacda inay guursato gabadh kasta waxa waaye khayaalay subsanaysaa waxa imagination ninka ay rabta inay guursato ama bayska oo ninkaas lagu dhisa waxa waaye aabahayga soo u eg yahay aabahay maxaan ka bartay so gabadha aabihii qaata dhaqankiisa qiimihiisa macaamiladiisa oo la macaamiloo jiray and then waxay kusii dartaa ninka iyada aragto maybe waxyaaba inay ku zaa'idayso maybe waxyaaba nin fiican waay laakiin waxyaabahana ka xun so maybe ninkayga waxyaabahanayta inuu qabinin ahaan rabaa ee dhehaysaa so marka wiilka sidoo kale marka hore naag inuu guursado inuu waxa waaye qofkii oo kala tasho lahay qofkii oo bari lahayd see naag loo raadsadaa qofkii oo bari lahayd see gabar loo shukaadsadaa qofkii oo markuu qaangaaraya waxyaaba badanaa isbedelayaan qofkii tusi lahayd waxa inay waxyaabaha jirkiisa iska bedelayaan camal sida la isku nadiifiyo camal aabihii waay
so aabihii markuu meesha ka maqan yahay danta wuxuu kalifaysaa inuu cunuga inuu telefishinka barto internetka barto saaxiibadiis ka barto maybe sax inuu u barto maybe khalad inuu u barto waxyaabahaas waxaa kaloo jirto sidoo kale gabadha ma taqaana markay nin raadsanayso ninka ay rabto maxay rabtaa inuu soo ekaana soo oo la macaamiloona ma taqaana sida oo nin oo soo dhaqankiisa iyo hadalkiisa soo raba sidee aan rabaa inuu ahaado ninkaasayto ma samayn karto ama imaginationkeeda wuu yar yahay because maba aysan arkin nin oo doorkaas matalayo si ee markaas u qaadato okay saan camal laakiin kastoo waxaan ku dara ama waxaan ka reeb si ay u dhahdo so that is very very important waxaa arkaynaa a lot of times waxaa jirta hadda waa aragteen domestic violence yaa jiro so like nimanka oo naagahooda dilayaan camal ama nimanka oo naagaha ku xadgudbayaan sexual assaultiga ayaamahan aad u famous u noqda naagaha lagu soo xadgudbayo oo you know la xumeynayo oo respectiga lahayn waxa waaye aabahay ku xiran tahay taas aabaha hadduu tuso wiilkiisa inaa gabdhaha waa la respecti garaya gabdhaha saanaa loola hadlaa gabdhaha ma lagu xadgudbo waxaas dhan hadduu aabaha tusin aan soo tusaay qasab maa inuu kala hadlo aabaha iyo hooyada sida iskula dhaqmayaan oo cunuga ka baranaa oo fiirsanaa so aabihii hadduu xadgudbayo oo hooyada ku xadgudbayo aflagaadaysanayo oo gacantiisa gaarsiinayo wiilkii wuxuu baranaa naagasaasa loola dhaqmaa saas waaye oo aabahiisaa loo suubi jira anna saanaa sameynaa waaye hadduu laakiin aabihii qof naxariis layahay oo tartiib u hadlaayo oo xataa maamada markay ku xadgudubta ama wax qalada tartiib wax ugu sheego oo oo dhahaayo waxa waaye yani waa la sirsirtaa qofka tartiibaa loola hadlaa wiilkina saas oo barana ana masala waxaa jira soomaalida dhihi jireen waxaa naagta maxay dhahaan laf waaye laf jilicsan waaye miya marka xoogna maloo marooji kara because way jabaysaa so it's really important yani inaa xataa markay iyada qaldan tahay cunug uu fiirinaa inaa aabahane oo markaas isne oo maryaha tuuran loo qaybinin inuu tartiib isaga qaboojiyo oo dhaho okay markaan ka hadlaynaa ama maya baisas maahasan waaye waxaas dhan waxa waaye role modeling doorka aad jiloosid aabanimadaada oo cunugaasayta fiirsanooya isagana doorkaas oo jeelaa beri markuu weynaado soona hadalka ugu soo dheereen waxaa rabaa inaa maanta ogeysiiyo aaba kasta oo soomaali ah oo videoga fiirsahaayo inaa aad iyo aad qiimo ka leedahay caruurtaada dhinaca caruurtaada and aaday important u tahay inaa caruurtaada xiriir la yeelatid inaa ka warqabtid ilmahaaga inaa la sheekeysatid inaa la qosashid inaa la lagdantid wiilashaada iyo gabdhahaaga inaa soo dhaweysatid oo qiimaheeda bartid because gabadha kalsoonideeda aabaha dhisi karo inaa bartid gabadhaada inay gabadha adduunyada u fiican tahay gabadha ugu quruxsan tahay inaa nin kastoo yani aabaha inuu dhihi karo gabadhaha nin aan kugu aaminaya iska er because that's how good you are si ay gabadha kalsooni u yeelata ee markaaseeto markay nin damacdo inay iyadana kor isku qaado standardskeeda oo hoos ahaa nin ma tahay ma loo arooso ninka inuu waxaa lahaada waa inuu ku qalmo so see u raadsata nin u qalmo mana baranaysa haddii oo aabaheeda barin so waa mahadsantihiin insha allah halahaasa raba inaan idin soo gaarsiiyo iyo aabayaalka soomaali dhan waa salaamantihiin waa intaas iyo waa la soo dhegtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu